maxaa dhacaya haddii aan kuu sheego in dad badan oo dunida ku nool sababtay faqri u yihiin amaba sabool yihiin aysan ahayn marnaba in dhaqaale la'aan ay haysto balse sababta ugu weyn ay tahay ay markaasi yihiin dad kharash badan yacni lacag badan fangareeya amba wax ku bixiya sidoo kale waxaa jira dad badan oo aaminsan in ay xallin doonaan dhibaatooyin badan oo noloshooda haysta haddii marba loo kordhiyo mishaarka ama kharashka soo gelaya laakiin dhibaatadu waa midaan dad badan markaa uu kordho mishaarkooga waxaa ku dhaca in kharashkooga ay kordho natiijaduna waa in ay ku jiraan isla xaaladii markii hore ay ku jireen muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa qodobka labaad ee ku jira buugga loo yaqaano The Richest Man in Babylonia qodobkan ayaa waxaan maanta ku baran doonaa in lacagtaada xakamayso halkee adiga ku xakamayn lahayd magacaygu waa Mr. Haybe kusoo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta kadib markii arkaadu baray saaxiibadiis in ay marka hore naftooda bixiyaan ayaa waxa uu siiyey sidoo kale cashar kale oo aad u muhiim ah midkan oo ah dhammaan rabitaanada dadka kale lama wada dabooli karo sababtoo ah dadku inta badan waxaa isku khaldaan rabitaanka iyo baahida waxayna u maleeyaan wax kasta oo ay doonayaan in uu yahay wax kasta oo ay u baahan yihiin laakiin marnaba xaqiiqdu midaasi ma aha haddii aadan xakamaynin rabitaankaaga dakhligaaga oo dhan waxaa dhamaynaya kharashaadka aad bixiso oo tusaale yar oo kooban haddii aan soo qaadano gabadh magaceyga lagu magacaabi jiray ayaa waxa ay heshay lacag cadadeedu dhan tahay $700 haddaba gabadhii waxay tiri marba haddii aan helo lacagta intan leeg ee faraha badan xaaladaydu way hagaagi doontaa wax walbana sidii hore waa iska bedeli doonaan balse midaasi marnaba ma aysan dhicin waxa ay bilowday in kharashkii ay heshay ay wax ku cunto wax ku cabto yacni waxyaabo badan oo ay ku samayso aysan u baahnayn oo rabitaankeyga ah laakiin ay samayso markii bishii ay dhammaatay waxa ay bilowday in ay la yaabto lacagtii meesha ay martay waayo lacagtii waxayba kaga dhammaatay waxyaabo badan oo rabitaankeyga ah laakiin iyada marnaba aysan dareemahayn haddaba halkaa waxaan ka fahmaynaa dhibaatadu inaysan marnaba ahayn dakhliga balse ay tahay kharashaadka adiga kaa baxaya ama yacni rabitaanka qofka midaasina waa qaladaadka ugu waaweyn ee badiya dadka badankooda ay mar waliba sameeyaan sidoo kalena ay ku dhaqmaan waxyaabaha la yaab kale ee maskaxda bini'aadanka marka la eegayo dhinaca cilmi nafsiga waxaa ka mid ah in inta badan nafta bini'aadanku lagu xanto inay jeceshahay raaxada yacni ay jeceshahay inay iska faakahaysato waxyaaba badan oo rabitaankeygana ay hesho mar kasta oo dakhligaaga kordhana waxaad aaminaysaa in aad u baahan tahay waxyaabo fara badan markaasi markii hore aanad waxba haysan aanad tabi jirin midaasi marnaba ma xuma laakiin caqabadu waxa ay timaadaa marka rabitaanku noqdo amar yacni qofka markuu rabitaankiisi uu noqdo amar isagii yacni lagu amrayo oo la odhanayo waxa iyo waxa waa inaan isla hadda aan helnaa amba aad iibsataa balse marka si qoto dheer loo eego maaha qaar badan oo ka mid ah waxyaabahaasi waxyaabo si dhab ah aad ugu baahan tahay badankooga waa rabitaan markaasi naftaadu ay doonayso in ay isku raali geliso yacni si ay raaxo u dareento haddaba haddii aad hal cashar muuqaalkan ka qaadatay waa inuu noqdaa midkaani waxaad ogaataa rabitaanadu marnaba ma dhammaadaan balse dakhligaaga waad maamuli kartaa sidoo kale mar kasta oo lacag soo gashana waa inaad isweydiisaa su-aashani tani ma baahi dhab ahba mise waa rabitaan ay nafteedu doonayso inay iyadu isku qanciso si ay raaxa u dareento sidoo kale nala wadaag maxay tahay kharashka ugu badan ee aad rabto inaad iska yarayso haddaba haddaad hore noola joogtay muuqaalka like noo saar haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir oo bartiina subscribe soo dheeb